waxaan iskugu imaana maanta duhurkan meeshan meel dhaba kuwi waaye webiga qarkiisa waaye waa behind Garissa Young Muslim meeshan waxaan identify gareynay oon garanay 4 meelood oo ka soo baxaan biyaha webiga marka ay soo aadaan buulada bula iftiin iyo agagaarkeeda iyo beeraha wax inta ka bilowdo ilaa maarta jariirood iyo wixii ka sii shishay beeraha sidoo wax affect garay oo floodka keeno inay 40 meel yaan la garanay yaan la aragnay marka waxaan leeyahay engineers ka socdaan WFP Kenya Red Cross County Government of Garissa iyo Garissa Farmers Network waxaan rabnaa inaan isku dayno sidaan maarta dadkan u kaalmeyn lahayn aan biyahan meesha ka xiri lahayn aan tala isku sheeganay marka taladana waan la fahanay waxaan sugaynaa engineerka inay noo sameeyaan design oo sidaan meeshan ku xiri lahayn annagoo isticmaalayno wixii what is locally available materials which are locally available at our level programkan maxaa iskale Garissa Farmers Network annagana garab baan u nahay inaan ku kaalmeyno meeshanayto inaan biyahan xirno sifa maarta aan kulli ma malaynayo 100% inaan achieve aan helayno sidaan rabno laakiin inaan reduce gareyno dhibaatada ay keento saameynta ay keento buuladanayto buula iftiin buula nyuki la dhaho iyo wixii beeroola ku dhinacan naga jiraan sidaan u kaalmeyn lahayn sifada roobka soo socda bishii 10 Ilaahay raali ka noqdo dhibaatada inay yaraato we reduce it to minimum as possible marka saasan oo isku maana maanta ma sha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah mid hore ilaaha mahad leh ilaahay gnasiya fursadan aan soo imaanay meeshan iyo caafimaadka iyo nabadgelyada aan meeshan ku joogno ilaaha mahad leh tan kalena waxa mahad leh muxuu ahay mahad celinayna mashruuca iyo oo halkan noogu imaado eegana inay aqoontooda iyo wixii kartidooda ah ay wax nagala qabtaan dhibaatada meeshan ay nagu haysay beera 60 kor u dhaafeen kor u dhaafeen meeshan laga bilaabo ilaa abaarood la gadaal loo dhaafo yaa biyi inta ka baxaan ay ama wadada ka xiraan ama beertiba ay galaan oo wixii abuurnay baabi'iyaan waxay kale oo saameysaa dadka buula iftiin hoosteeda ah oo buula nyuki ilaa culuma laga imaado intaas ayadana way saameysaa waxaan rajaynaynaa haddii meeshan 40 farood biyaha ka baxayeen horta markay hor u socdaan way isku darayeen oo hal xabad oo weyn bay noqonayeen marka waxaan filaynaa tan haddii la xiro biyaha inteeda badan inaan ma aragtay ka raysan doono oo dhamaani doonto waqti El Niño weyn waxaan ka ahayn saas ayaan rajaynaynaa insha Allah waxaan leenahay muxuu ahay waad mahadsantihiin cid kasta oo nagala qayb qaadato aad baad u mahadsantihiin waxaana weli baryaynaa macnaha inaanan halkan noogala harin oo safartaas way dheer tahay webiga inaan iska celinno oo way safar dheer waay oo hadda inta uu ka bilaabanaysa inaad nala socotaan safartaas ilaa aan maaragtay aan si toos uga badbaadno dhibaatada webiga uu nagu hayo